Serkan Oglo, mid ka mid ah jilayaasha ugu quruxda badan uguna caansan waddankaasi Turkiga. Ka qaybgalka filimkii Mawsimul Karas ee uu ka qayb galay ayaa aad uga qayb qaadatay caanimadiisa iyo inay dad badani bartaan. Hibadiisa jilitaan ayaa shaashadaha caalamka u sahashay inuu qabsado muddo aad u yar. Maanta waxaynu ka sheekaynaynaa qisadii nolosha ee aktarka Turkiga ah ee Serkan Oglo. Waa jilaa iyo model xayeysiiya dharka. Serkan waxa uu ku dhashay waddanka Jarmalka 31 May 1987. Waalidkii ka shaqayn jiray ayaa u sahashay inuu ku noolaado Jarmalka, halkaasna kaga soo baxo ilaa heer jaamacadeed. Waa isaga iyo wiil ay isku mataansan yihiin iyo hal gabadh oo walaashiisa. Waxa uu jaamacadda Erlangen ka bartay kulliyadda dhaqaalaha. Markii uu waxbarashadiisii dhammaystana waxa uu go'aansaday inuu Turkiga dib ugu soo noqdo. Serkan marnaba kuma fakarayn inuu noqon doono aktar caan ah, xitaa qorshihiisa mustaqbalka kuma jirin. Waxa uu bilaabay inuu tijaabiyo bal hadda jilitaanka. Markii hore waxa loo soo bandhigay shirkado badan inuu xayeysiiyo dhar maadaama uu ahaa wiil aad u qurux badan. Waxa uu xayeysiin jiray dharka shirkado laga leeyahay waddanka Talyaaniga. Ka bacdina waxa uu tijaabiyey bal hadda inuu marun jilo filim, waxaana dowr yar laga siiyey filimkii la odhan jiray Waqooyi iyo Koonfur. Filimkaasina waxa uu ahaa 2012. Waxa uu ka qayb galay filimkii isna la odhan jiray Salatu Saytuun. Uu ka qayb galay sanadku markii uu ahaa 2014. Ka bacdi waxa loo soo bandhigay inuu ka qayb qaato filimkii Mawsimul Karas isagoo la siiyey aktarnimada, halka aktaradda ay la jilaysay Özge Gürel. Filimkan ayaa wuxuu ku matalayay Iyad, iyaduna waxay ku matalaysa Fatuun oo ahayd gabadh jaamiciyada jecel ah dhisaynka dharka inay soo saarto. Waxa ay jeceshahay saaxiibkeed, laakiin saaxiibkeed hoos uma soo eegayo ilaa ay ugu dambeynta kulmaan Iyad, halkaasna uu ka bilowdo jacaylkoodii. Filimkan Mawsimul Karas ayaa wuxuu ka soo hooyay guulo badan, isagoo ka dhigay mid caan ah dadkoo dhan inay yaqaanaan. Weliba caanimadiisu waxay sii siyaaday oo ku sii siyaaday adduunka iyo caalamka Carabta markii filimkan loo soo turjumay luqadda Carabida lagana soo daayay kanalka MBC4, taasoo ka dhigtay mid dadka oo dhani jecel yihiin. Sidaa ayuuna ku soo galay adduunkii caanimada. 2016 wuxuu la soo noqday filim cusub oo shaashadaha qabsaday, kaasoo la yiraahdo Xubbu Xayaati ama Jacaylkii Noloshayda. Uu la matalayay aktaradda Hinda Damiir, iyadoo ku matalaysa gabadh firfircoon kuna guulaysatay shaqadeeda iyo nolosheeda. Waxayna gaadhay 30 jir, waxayna doondoonaysaa ninkii ay nolosha la qaybsan lahayd. Waxay doontaba ugu dambeyn waxay isjeclaanayaan wiil qurux badan ahna maamulaha shirkadda ay ka shaqayso. Caanimadii Serkan ma ahayn mid istaagta. 2019 waxa uu soo matalay musalsalka la magac baxay Xalqa isagoo ku matalayay taliye Jahangir. Waana laba taliye oo kala sifooyin duwan, laakiin isku kaashaday si ay u soo qabtaan ururada maafiyada ee bilaa sharciga ah. Jahangir waxa uu jeclaan doonaa inanta uu dhalay madaxa maafiyada. Filimkaana aktaradda waxa matalaysa aktaradda quruxda badan ee Hande Erçel. Tii lagu dhex jiray matalaadda filimka Mawsimul Karas waxa jacayl dhex maray aktaradda filimka ee Özge iyo Serkan. Xiriirkooda ayay ugu dambeyn dadku u soo bandhigeen, waxayna ka mid ahaayeen markaa lamaanayaasha ugu caansan looguna jecel yahay waddankaasi Turkiga. Iyada oo waqtiyo dambe ay la sheegay inay kala tageen, laakiin garan mayno sababta ay ku kala tageen. Misana 2018 ayaa waxa soo muuqatay in ay dib iskugu soo noqdeen, waxaana la sheegay inay isguursan doonaan kadib markii ay kulmeen labada reer ama labada family ay ka soo jeedaan. Özge Gürel mar ay qabanayso shir saxaafadeed ay sheegtay inayna hadeer diyaar u ahayn in ay qaado mas'uuliyadda hooyanimo amaba ay guursato. Waxay sheegtay
in guurka iyo hooyanimadu ka hor istaagayaan mixnadeeda jilaannimo. Waxayna sheegtay inay Sakraan ku jeclaatay sida uu ilaaliyo shaqadiisa, qalbi wanaagiisa, iyo inuu mar walba isku dayo inuu dadka ka farxiyo. Waxayna sheegtay in ka hor intii aanay isjeclaan ay jacaylkooda ka horreysay barasho badan iyo inay isla shaqeeyeen ilaa ay ugu dambeyntii isku qanceen oo midba midka kale uu ogaaday inuu yahay qofkii nolosha la qaybsan lahaa kuna habboonaa. Halkaa ayayna inoogu eg tahay qisadii nolosha ee jilaaga Turkiga ee Sakraan Şayoglu. Waan rajaynayaa inaad ka heshay. Fadlan channelka subscribe saar, videogana like saar, una share garee asxaabtaada iyo familygaaga.